waxaa goor dambe galabta uu mudaarad xooggan gilgilay afaafta hore cisbitaalka magaalada Berbera kadib dhimashada taliyihii Abdaal sarkaal Cabdulla Cabdi Dhimbiil oo wararka qaar sheegaya inuu shil gaari ku dhintay halka ehelada marxuumkuna ay ku doodayaan inay jiraan tuhunno looga shaki qabo in marxuumkaasi la dilay warbaahinta ayaa booqatay goobta uu ka socdo mudaharaadku waxaana jawigu ahaa sida tan iyo taliyaha ciidanka la dilay iyo ragga taliyaha maalin walba lagu soo bireeyay gariga dawladda aad bay uga gaabisay waanay loog tahay oo way ka dambaysaa ninka ilaaha ninka meydka ee toddoba casharka ma maamul xubo gobolka ka jirta ayaa ka taagan waxaan taliyihii Abdaal annagu waxaan u tireenaa kabeel ahaan in lagu dilay mu'amaraad oo markii mu'amaraadkii lagu dilayna waxaweel cidii maamulka dalka leysatay way diiday in la baaro oo si madax banaan loo baaro ilaa ummad baana waan ku qanci lahay marka la baaro ee ay cadaatay waxaan ay sheegayaan inay shil gaadho ku dhintay ilaahina abuurtay baaba la weydiin lahaa hadaan ku qanci weyno laakiin marka aan aragno ninkiyo la xirxiray oo adimada xarig laga jaray oo aan aragno madaxood daloola oo aan aragno in laga garaacay caloosha de wax weyn anaku dabiirku nisiin waayay inaanu naho wal iska aasayno dhibaato kale aanu qaranimo noo diidan dhibaato inaan abuurno ma rabno laakiin waxaan rabnaa in taliyaha maayarkii gurigiisa ka saaray iyo toddobaad qof la socday ee la gaadha nala dhacay si sharciyada loo keeno dhulka dawladdu ay baawdo marka naloo baadho ninkana dhakhtar la geeyo baaritaan dhakhtarka la mariyo halkan waxa ka dhacay taliyihii Abdaal oo aftuub lagu dilay afartii habeenimo gurigiisa laga qaatay isagoo meydin la soo celiyay waxaana ay ku ballan qaadeen nimankaasi inay dilayaan ninka ummadda oo dhan baa ka barqaatay iyo Berbera oo inay ku ballan qaadeen inay dilayaan waxaan leenahay xoogii lagu dilay hadii maantana lagu aasayo xukuumadda ha ku aasato anagu meeshaan u raacaynana waan maqan wassalaamu calaykum mudaharaadkan iyo shoobaraan ka dhacaya ay tahay taliyihii degmada Abdaal kabtan Cabdulla Dhimbiil oo la lagu yiri ku dhintaan shil gaari ku bixin markaan waa saamay koobihii tagnay yaanu ka soo mudaharaad ba jiray baaritaan ku soo sameeyay halka ka dhacay jirin sideedaba ninka in gacan lagu dilay dadka uu la socdana waxa dadkii markii horeba u hanjabay ee ergooyinka ka geeyay ومسلح سلبا سدي تلفزيون كأريال بربرا